munaasabadan oo xariga looga jiray xaruntan loogu talagalay adeegyada caafimaad ee haweenka qaba isku furanka ee degmada Daynile iyo tababarada dhaqaatiirta waxaa ka qayb galay wasiirka caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta maamulka degmada Daynile iyo xubno ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada kadib markii dhawaan la soo gabagabay howlo qalabayn iyo dib u dhis xaruntaasi lagu sameeyay Cabdullaahi Yuusuf Macallin oo agaasimaha hay'adda baag oo qalabaysay xaruntan ayaa faahfaahin guud ka bixiyay adeegyada xaruntan ay bixinayso xaruntan wax yar hadaan war yar idinka siiyo xaruntan waxaa dhisay qof community ka tirsan waxaana qalabeeyay hay'adda baag qalabka yaal hay'adda baaga keentay fikradana waxay ka timid asalkeeda markii la fiiriyo waa la socotiin wadankeena inta badan waxaan ku tiirsaneen anaga campaign in la sameeyo kaliya campaign in la sameeyo sida hadda Cabdiraxmaan uu noo sheegay iyo statistics asaga uu ka hadlay wadanka hay'adda baag waxay ka qabatay 6 campaign oo isu furanka haweenka ah oo Soomaaliya oo dhan oo laga keenayo waxaana hooy u ahaayay oo xarunta la keeni jiray lagu daaweyn jiray waa isbitaalka Daynile marka maalin waliba ma dhici karto in campaign oo dhakhtar banaanka laga keenayo inaan mar walba aan ku tiirsanaano kadib waxaa jira fikir oo qaran ah ma ahan fikir oo maanta hay'adda baag oo kaliya u yaalay ma ahan fikrad oo maanta community Daynile oo kaliya u yaalay ama wasaaradda caafimaadka waa fikir wuxuu ahay Soomaaliyeed oo ay hogaaminaysa wasaaradda caafimaadka gudoomiye ku-xigeenka degmada Daynile dhinaca siyaasadda Axmed Nuur Axmed ayaa ka mahadceliyay xaruntan dhismaheeda isagoo sheegay in wax badan ay ka kaabi doonto baahiyaha dhanka adeega caafimaadka ee haweenkaasi aad iyo aad ay u mahadsan yihiin intii ka soo qayb gashay arintan ayada ah mashruucan oo la dhagax dhigay ama la dhagax dhigay 6 December oo haddana noo gabagaboobay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa qof kasta oo ka qayb gashay gaar ahaan wasaaradda caafimaadka oo la'aanteed aysan noo suurtagali lahayn iyo agaasimayaasha ama agaasimaha guud iyo agaasimo waaxeedyada iyo dhammaan intii uu istaagtay boorka oo had iyo jeer ku haya gacanta isbitaalka guud ee degmada Daynile oo habeen iyo maalin u taagan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa hadduu alla idmo wasiirka caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Abiykar Nuur ayaa si rasmi ah xarunta xariga uga jartay iyadoo bogaadisay fikradaha ku aadan horumarinta adeegyada caafimaadka ee bulshada maanta waxaan u fadhinaa waxa waaye isugu nimid inaan furno xaruntan loogu talagalay fistulaha in lagu daaweeyo tababar loogu sameeyo mar dambana aan loo baahanin campaign ama olole ka yimaada dibadda oo mararka qaarkood ay qaadanaysa sanad iyo ka badan in la keeno oo ma aragtay wax imaanayo oo baxayo waa fiicnaan lahayd waana ku dadaalnay waana u ololeynay wasaaradda hadaan nahay in aan helno xarun aan ku tababarno takhaatiirta sameyn doonto oo laga kaaftoomo hadda kadib in dibadda laga keeno takhaatiir xaruntan waxa ay ku taala isbitaalka Daynile ee magaalada Muqdisho waxaana in muddo ay qaban jirtay adeegyada la xiriira haweenka qaba cudurka isku furanka balse haatan waxa muuqata in la ballaariyay xaruntaasi Cali Cabdulqaadir Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho